ayaa waxa uu maanta xariga ka jiray suuq aad u ballaaran oo noociisa aan horey loogu arag gobolka Awdal. wariyaha Somali Channel uga soo warama magaalada Boorame ee gobolka Awdal Cabdifataax Axmed ayaa warbixintan halka ka soo diray. bariga magaaladan Boorame waxaa maanta xariga lagaga jaray suuq cusub oo casri ah wuxuuna suuqan ku xusan yahay inuu yahay kii ugu horeeyay oo noociisa oo laga furo gudaha magaaladan Boorame. suuqan oo qaybo kala duwan ka kooban waxaa maalgeliyay muwaadin gobolkan Awdal ka soo jeeda oo ku dhaqan magaalada Dubai ee dalka Sultanka Imaaraadka Carabta laguna magacaabo Mudane Xuseen Daahir Mixile. waxaana suuqan xariga ka jiray gudoomiyaha gobolkan Awdal Cabdo Axmed Aayar waxaana ugu horeeyay munaasabadii xariga jarka suuqan cusub ee loogu magacdaray Awdal City Center ka hadlay Mudane Maxamed Daahir Mixile iyo injineer Cumar Xasan kuwaasoo ka waramay heerarkii kala duwanaa oo asaaska suuqan uu soo maray. baahi weyn magaalada aan arkaynay baahi weyn u baahan tahay oo ay baahi jirto maadaama aynay qusradii jirin meel lagu iibiyaa hilibkii meel ay ciriiri noqotay dee waxa inta gafaynaya markii aan aragnay aan indhaynay ayaan u talagalnay in aan sariimada bilowno 100 mitir oo saasa iyo 30 saasa si kala adan sheegno waa 3000 mitir oo square ka kooban yahay marka waxa weeyaan 3 qaybood ay ku kooban yihiin suuqaas. qaybtani waa suuqii weynaa waxa weeyaan 30 qol oo guri oo baayaamista. qaybta ku xigta waxa weeyaan qaybtii khudaarta waa 6 iyo 30 qol oo yaryar oo qofkiiba meel geliyo. waxaa ka sii sheeya qaybtii hilib oo iyaduna 25 miis. sidoo kale maamulka heer degmo oday dhaqameedyo qurba joog iyo qaybaha kala duwan ee maanta ka soo qayb galay furitaanka suuqan ayaa iyaguna waxay u hambalyeeyeen muwaadinkan ka soo jeeda gobolka Awdal ee hirgeliyay suuqan cusub. waliba uu yahay yani ku had ilaa yaraantiisii ku hamiyay gobolkaasi uu wuxuu ka qabanaa haday xagga beeraha tahay haday xagga dhismaha tahay haday xagga warshadaha tahay himiladiisii maanta kamid bay tahay waa mashruuc qayima. أنا مركي هراء على لها مسكرة بالغة فرح حافظها الشارع الجوار قيتها سيبيريا حاجة قرقاب جدة وحنس لها وعشان قال يلح قلاه قال ما قلاه خضرة دي واحد يملا مشروع عنه هو مشروع وين هو بلارن وأنا ولي أنا نكو أرجع عاصمة دينا حتى هرجيسة أنا زريمة ديدا أنا نكو أرجع هذه بان نيجو هم بلياننا نيجو دعينا نظهر بحلال رتايات كهم بدين قيمها بدن له runtii meel badan looga baahan yahay waan ugu hambalyeynaa waan ugu soo dhaweynaa waxaan leeyahay Allah Ilaahay naga jisaysiyo waxaan leeyahay ragga mashruuca hirgeliyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa haddaanu nahay madaxdii dhaqanka ee bulshada anagoo bulshada midna mashruucan hirgeliyay Xuseen Daahir Mixile iyo walaalihiis cabashooyinka ugu badan ee imika halkan laga sheegaya waxa weeye wadooyin mid iyo laba iyo saddexba miisaaniyadan soo socota ee foodinka inaan ugu darno waliba wadooyin daamura ayaana ballan qaadaynaa. gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdo Axmed Aayar oo gabagabadii munaasabadan ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in maamul ahaan ay aad ugu faraxsan yihiin in suuqan loogu magacdaray Awdal City Center laga hirgeliyo Boorame kaasoo uu sheegay inuu dabooli doono baahiyo fara badan inuu ganacsi ku soo kordhiyo gobolka isagana faa'iido ugu jirta bulshadaasna waxa ugu jirta faa'iido maanta sariibadan la furay deegaankan oo dhan iyo inta ku dhow waxay u fududaynaysaa oo ay ka daboolaysaa baahidii ay adeega ugu doonan jireen suuqa iyo meel fog ayaa waxay u fududaynaysaa inay ka helaan xarunta tan. waxaan leeyahay ku deesho wanaagsan baad mudan tahay ma aha sariibaduun laakiin waxyaabo badan oo bulshadu u baahan tahay. Cabdifataax Axmed, Somali Channel, magaalada